بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. الحمد لله إلهي baa mahadle. waxaanu doonaynaa maalmo oo ka mida maalmaha sanadka ku jira amase shuhuurta bilaha 12 ku jira fadaa'il oo khaasa iskala ama gooni gaar ahaaneed inaanu maaragtay ka hadalno oo aanu u sheegno dadka Soomaaliyeed oo muslimiinta ayaamahaas fadliga iska leeyihiin iyo sida ay kala yihiin, wixii ilaahay iyo rasuulkiisu ay ka yiraahdeen aynu wax ka soo qaadano. ayaamaha kan sida haddaba aynu joogno, waxaanu joognaa dhammaadkii sanadkii maaragtay 1439 dhammaadkiisii ayaanu joognaa. bishii waxaa dhalatay oo dilxija oo waxa weeye xajka mucdamkiisu uu ku jiray amase xajkaba ahaaday oo dilxijaaba la yidhaah. waxa loogu magacaabane acmaalul xaj waxay dhacaysaa bishaan ayay dhacaysaa, xooggeeduna waxa uu dhacayaa bishaan 10keeda ayuu dhacayaa. hadda waxaanu doonaynaa inaanu ka hadalno ayaamahaas 10 fadaa'ishay iska leeyihiin iyo maalmaha ku jira qaarkood sida yoomu carafahoo kaleentood, sida maaragtay uu khayr badan yahay yoonkaasu dadka muslimiinta oo ayagu aan ahaynin dadka xujayda aan ahaynin waxyaabaha la farayo inay soomaan ayaanu soo qaadanaynaa. Allah subxaanahu wa tacaalaane waxa uu dhahay: walfajri walayaalin cashrin washafci walwatr walleyli idaa yasri. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, fajarka ayaan ku dhaartay, salaada subaxa maalin kasta fajarka dhalanaya ayaan ku dhaartay, habeenno oo 10 ayaan ku dhaartay, washafci walwatri ayuu dha ilaahay, tirada eg iyo midda dhiman ayaan ku dhaartay, walleyli idaa yasri ow dha ilaahay, habeenku marka uu guuraan ku dhaartay. marka maxalu shaahidka waxa uu yahay walayaalin cashrin. walayaalin cashridaas waxay leedahay tafaasiir badan ayay iska leedahay. habeenadaas oo 10 waxa weeye dhowr tafsiiraa ku soo aroortay, laakiin midda anagu doonayno maxalu shaahidkeena maanta uu yahay ama mawduuceenu uu ku saabsan yahay waxaa la yidhaahdaa waa cashru dilxija la yidhaah. walayaalin cashrin mufasiriin badan ayaa saas ku fasiray oo saxaabo iyo taabiciin iyo rag kaleentoodoo badan ayaa ku fasiray. marka waxa weeye ayaa habeenadaas waxa ilaahay ugu dhaaranayana wax badan ayay kulmiyaan. markaasaa waxa weeye waxaa weyn xurmadooda ayaa weyn, ayadooba bishuba ay ka mid tahay bishii oo maaragtay ashhurul xurumkahay ay ka mid tahay. marka bishaan waa bil khayr badan aad iyo aadna maaragtay wax badan oo acmaala ay ku soo aroorayaan. waxaa ku jira rugni weyn oo arkaanul islaam ka mida oo rugniga xajka ayaa ku jira, shacaa'irtiisii ku jirta. waxaa kaloo ku jira fawaa'id kaloo fara badan oo cibaadooyin ayaa ku jira. waxaanu ka soo qaadan doonaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaamaha kan sida uu u tilmaamay. xadiis uu wariyey, imaam bukhaarina uu wariyey, abu daa'uudna uu wariyey, tirmidina uu wariyey. laakiin hadda lafdiga kan lafdiga tirmidi uu yahay. xadiiskan waxaa laga wariyey saxaabiga jaliilka oo la yidhaahdo cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayhi wasalam. waxau cabdullaahi ibnu cabbaas rasuulka ka wariyey calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yihi ranmabu: maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiihinna axabu ila allahi min hadihi alayaami alcashri. waxau dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, maalmo ma jiraan ayuu dhahay oo camal saalixa dhexdooda la sameeyo, maalmo oo camal saalixa lala yimaado ma jiraan
oo camal saalixa lagu sameeyo maalmayaalo oo camal saalixa lagu sameeyo dhexdooda ma jiraan oo alla looga jacayl badan yahay min haadihi alayaami alcashri maalmaha kan oo 10 ah laga bilaabo sida hadda aynu joogno 10 bisha dilxija soomaaliduna carafada u yaqaaniin carafa waa maalinta sagaalaadka laakiin bishan waxaa la yidhaha dilxija ayaa la dhahaa waa bishii 12aad oo sanadka islaam muslimka amase sanada hijriyada ay ku dhamaahaysay marka maalmaha kan oo 10 ah waxa weeye maalmo cajiiba waaye camal maalmo la sameeyo oo maalmahan camal lagu sameeyo laga jacayl badan yahay ma jira ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasay saxaabadii nabiga dhegaysanaya waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah walal jihaadu fii sabiili illaah jihaad ilaahay fii sabiili llahi lagu jihaado oo liiclaa'i kelimati illaahi loo dagaalamo xataa fadli kuma dhama miya rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu dhahay walal jihaadu fii sabiili illaahi xataa jihaad fii sabiili illaahi maalmaha kan oo 10 ah camalka lagu sameeyo ayaa ka khayr badan ou dhahay ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi falam yarjic min dalika bishayin ou dhahay rasuulku ilaa nin mooyaane naftiisi la baxay oo jihaadka la aaday maalkiisi qaatay waxbana aanan kala soo noqonin oo jihaadkii markuu taga nafti ku waayey maalki ku waayey ninkaas mooyaane inta kaleentood ayaga ayaa ka fadli badan ou dhahay maxaa kaaga muuqanaya marka waxaa ka muuqanaya maalmaha kanu wax sahlan inaysan ahayn hadda maalmahaasu ka faa'iideysi bay rabaan wayna dhaafayaan inta markaasi soomaalidu waxay yidhahdaan daruuri intay da-aysaa la doogtaa la yidhi maalmahaas inta ay socdaan waynaynu ka faa'iidaysano cibaadada looga faa'iidaysanayna wax kasta weeye maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihin ou dhahay camal saalixa inuu lala yimaado sheega rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka camalka saalixa soomou noqon karaa salaadou noqon karaa sadaqou noqon karaa anwaaculbiri oo dhan cibaado nooc kasta wax kastoo ilaahay loogu dhowaado ayuu noqon karayaa waxaa laga yaabaa dadka inay leeyihiin maalmahaanaan soomaynaa oo soon kaliya ay markaasi ay doonaan inay ku khasisaan war arrintu sidaas ma ahan soonku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha khayriga ah oo acmaasha saalixada ah oo bishaan 10keeda lagula imaanayo ayuu ka mid yahay 10ka horta maba ku jirto 10ku waa ciidi waaye ee ilaa yoomu carafaha sagaalaadka laga gaarayo oo ayadana aynu soo qaadanayno intaas ayaa loola jeedaa marka waxa weeye wax kasta oo khayra oo camal saalixa ah oo bishaan aad la timaado qiraa'atu lqur'aan ha noqoto qur-aankood akhriso adkaarka oo aad badiso sadaqada oo aad badiso maaragtay dadka masaakiintood u naxariisato maaragtay sulx bayna almuslimiin ood ka shaqayso adigu wax kastaa soo gelaya maxaa yeele camal saalix ou sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka camalka saalixa oo bishaan lala yimaado heerka markaas uu gaarayo ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabtu waktigaas waxay aad iyo aad maaragtay u fadili jireen jihaad fii sabiili illaah maxaa yeele cadowga kufaarta ah oo maaragtay lala dagaalamo oo waxa weeye islaamnimada la gelisiiyo oo maaragtay kufriga laga hortago islaamkana la xoojiyo oo diinta la fidiyo ayaa waxay aheeday wax aad iyo aad maaragtay loogu faano welina sideedii bay tahay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu waxay isdhahayeen wax jihaadka fadli badan maba jiraanba hadda jihaadku waa fadli badan yahay oo asaguna baabkiisa gooni waaye laakiin hadda ayaamaha kan waa ayaamo kooban waxyaabo khawaasay iska leeyihiin adoo jihaadkina ku jira ayaad xatana camalkii aada la imaan kartaahoo bilaha laftirkoodu ama bishaan 10ka ugu horeysa oo xataa jihaadkii laftirkiisa qofkaan markaasi xaaji aan ahayn ou la yimaado laftirkeeda camalkii saalix ay soo gelaysaa markaasay asxaabta wixii ayaga ku weynaay ayay waxay yidhahdeen walal jihaadu fii sabiili illah jihaad fii sabiili llahina bal ka warran sul allow markaasuu nabigu dhahay alayhi salatu walal jihaadu fii sabiili llah u dhahay ilaa nin naftiisa iyo maalkiisi la baxay oo jihaadka la aaday mooyaane oo waxba kala soo noqonin taasaa nabigu calayhi salatu salaam ayuu soo istisnooday
xadiiskaasuna waa xadiis saxiix waxaana la ka rabaa marka inaanu bishaan tobankan ugu horeysa dadka xujayda ah ayaga acmaal gaar ayay ku jiraan camalkoodii waaba socdaaba waxaa yeelay tobankaanu waa mucdamkoodu cashru dilxija waa markaasi mucdamulxajki oo dhan meesha maaragtay oo lagu samaynayo weeye oo xajmaba ka horeeyaba haddana waxaa waaye alxaju carafa ayuu dhahay rasuulka calayhi salaam xajka mucdamkiisu carafo weeye oo carafo haddana mucdamki sii ah marka laakiin waxaa weeye dadka muslimiinta ah oo aafaaqda arlada jooga oon ayagu markaasi aan ahaynin xaajiya xujaay aanan ahayn ayaa la rabaa inay ka faa'iidaystaan oy maaragtay maalintaasu maalmahaasu aysan ku dhaafin ciyaar aynan ugu dhaafin oo inaanu khayr ka badino inaanu baraarugsanaano oonan noqonin dad maalmihii caadiga ahay oo lasoo dhaafay mar walba khayrka waa la doonayaa laakiin maalmaha qaarkood in lagu baraarugo ayaa loo baahan yahay oo kaafiliin inaanan noqonin oo maalmahaanu aysan maalmaha loola mid noqonin ayaa la doonayaa taas haddaan halkaas ku dhaafno maaragtay zawjaadkii rasuulkeena calayhi salaatu salaam umu salama ama xafsaa la yidhaahdaa midood waa isku wada mideh waxaa laga wariyey xadiis oo maaragtay abu daa'uud iyo nasaa-i u wariyey imaamu axmed musnadkiisa uu ku wariyey ayaa waxay yidhaahdeen kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama yasuumu 9 dilxija wa yowma caashuuraa waxa ay tiri umu salama nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahay inuu soomaayo 9 dilxija waa bishatan 9 weeye 9 ayuu soomayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa yowma caashuuraa maalinta caashuurada ahoo caashuura iyaduna waa 10 bisha muxaram oo sanadka cusub oo soo socdo noo soo dhow oo sanadka muslimka bisha uu ka bilowda weeye maalintaas yowmu caashuuraa iyo maaragtay ayadana marka aanu ku tagno waanu ka faalayn doonaa ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soomi jiray tiri hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis kaloo soo aroortaa jira oo ibnu cumar ay wariyeen oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waktigu maaragtay xaajiga uu ahaayo xajki maaragtay weynaayo xajki rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo maaragtay xajatulwadaac ahay xajatulwadaacdaas nabigu calayhi salatu wasalaam ma soomin 10 hadda 9aadkan la soomaayo oo 9 bishu markay tahay soonkan la soomaayo dadka xujayda ah kuma jiraan ayaga xaj markaas looma sunneeyo bal waxa weeye karaahi waaye lamana xarimin waxa loo yeelaayene ayaga waxay ku sugan yihiin acmaal fara badan oo dhib badan ay ku dhex jiraan maalintii carafo la istaagayo weeye howlo badan ayaa ayaga lasoo gudboon habeenkaasoo laga soo noqonayo habeen aad iyo aad u dhib badan ah oo lasoo aadayo markaasi mashcarulxaraam oo halkaas lasoo aadayo kabacdi maaragtay jamratulcaqaba la tuuraayo kabacdi maka lasoo dawaaf lasoo aadayo dadkaas waxaa weeye howl fara badan ayaa ayaga ku jirta ilaahay subxaanahu watacaala addoomankiisa inuu maaragtay diinta ilaahay ku adkay maayo diinteenu diinulyusri wasamaaxa weeye marka dadka loo sunneeyo inay soomaan waxa weeye dadka kale oo aan xujayda ahayn oo aafaaqda arlada jooga oo muslimiinta ayaa looga baahan yahay inay saas ugu daydaan laakiin iyada caashuurada waa caadi taasu cid walba waa soomaysa hadda waqti xaj ma ahan taasu marka taas waxay noo caddaynaysaa haddana nas inay tahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu 9 bisha oo maaragtay bishaan oo dilxija inuu soomi jira rasuulka calayhi salatu wasalaam asxaabtiisuna ay soomi jireen oo nabiga calayhi salatu wasalaam ayaa looga dayanaya maalin marka waxaa weeye aad iyo aad u khayr badan weeye xadiiskaas isagana hore saan u sheegnay waa xadiis isaguna maaragtay oo saxiixa waaye oo maaragtay isagana waxaa weeye abu daa'uud oo wariyey sanad wanaagsan imaamu nasaa-i wariyey imaamu axmed musnadkiisoo ku wariyey marka wuxuu noo caddaynayaa xadiiskaasu bishaan dilxija soon haddii la yidhaahdo si nas ah waxaa ku cad markaasi maalinta oo 9aadka in la soomo qof kasta oo muslima oo soomi karta soonkaasu maahan waajib ma ahan dadka waxay ku soo weydiinayaan maalintaas amayba waajib tahay soonkaas waajib maaha soon waajiba oo aan ahayn ramadaan ma jiro ilaa in lagu nadro mooyaane hadduu hadda lacala qof uu ku nadro nadarka waajib uu noqonayaa ama bishaan ha ku jiro ama bilo kaleba ha noqoto ama maalmo kaleba ha noqotee taas waxaa xadiiskaas noogu caddaaday in maaragtay bishaan dilxija maalintay 9 tahay in rasuulkeena calayhi salatu wasalaam uu soomay annaguna aan ugaga dayanayno
haddaanu soo qaadano xadiis kale oo abu hurayra uu wariyey oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka wariyey xadiiskaas isagana waxaa weeye waxaa soo saaray imaamu tirmidi ayaa soo saaray sanadkiisu inkastoo wax laga sheego laakiin xadiiskaas waxaa adkaynaya axaadiistii ka horeysay ayaa adkaynaysa oo hadda waxa weeye wuxuu xadiiskanu caddaynayaa in maaragtay bishan oo dilxija 9 in la soomaayo ayuu caddaynayaa marka xadiiskan waxa weeye waxa uu dhahay ma min ayaamin axabu ila llaahi maalmayaala ma jiraan alla xaggiisa looga jacayl badan yahay an yutacabada lahu fiiha in ilaahay lagu caabudo min 10 dilxijata bisha dilxija 10keeda yacdilu siyaamu kuli yowmin minha maalin kasta oo ayada kamida 10kan kamida haddii laga reebo 10ka waxa weeye bisha 10ku kuma jirto oo ciidu kuma jirto laakiin 9ka maalmood soon oo la soomo waxa uu dhigmayaa bisiyaami sanatin wa qiyaami kuli leylatin minha biqiyaami leylati alqadri waxa weeye maalinti kamidahoo la soomo waxay u dhigmaysaa sanad la soomo laakiin haddii xadiiskaas la macneeyo bacdu alkhawaas waa leeyahay sanad la soomo hadda sanad dhan oo soon la isku xijiyo markaasi waxyaabo badanaa bay jiraaya laakiin waxa weeye in maaragtay fadaa'il fara badan oo markaasi soonkaas faraha badanne wax lamida in markaasi waxa weeye bacdi oo kamida inay yeelanayso bacdu alkhawaasaa la yidhaahdaa sanad la soomo khawaasta uu leeyahay ama waxyaabaha gaar ahaan uu leeyahay qaar kamida iyo habeen kastoo qiyaamuleyl loo kaco qaar kamida ayay markaasay noqonaysaa marka taas haddii aanu kasoo tagno xadiiskaas sanadkiisa xoogaa waa daciif laakiin xadiis oo saxiixa ayaa jira oo imaamulbukhaari mooyaane ummahaatu sitaha 5 kale ay wariyeen ayaa jira oo asaguna noo caddaynaya in maaragtay yoomu carafa la soomaayo annagoo xadiiska horena kusoo qaadanay xadiiskan waxaa la yidhaahdaa xadiiska abi qataada saxaabiga la yidhaha ayaa wariyey nabiga calayhi salatu salaam ayuu ka wariyey waxau dhaha rasuulkeenu calayhi salatu salaam siyaamu yowmi carafata inii axtasibu cala allaahi an yukafira asanata alatii qablahu wasanata alatii bacdahu rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maalinta carafo oo la soomo soonka la soomaayo oo aan soomaayo ummaddayduna ay soomayso intii soomi karta rabbi subxaanahu wa tacaala alla ayaan uga ajir dalbayaa inuu iigu dhaafo ama ummadda ugu dhaafo sanadkii tegey wixii dunuubahayoo dhacay iyo sanadka soo socda wixii dunuubahoo dhacayo maa sha allahu xadiis aad iyo aad u weyn waaye waxau dhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam inii axtasibu cala allaahi rabbi ayaan uga ajir dalbayaa oon uga ajir xusubsanayaa inuu ku dhaafo an yukafira asanata alatii qablahu wasanata alatii bacdahu sanadkii waxaa weeye isaga ka horreeyey hadda waxa weeye sanadki waa sii dhammaanaya sanadkan hadda sii dhammaanayo oo kale masalanba hadda waxaan haddan barnaamijkan qabanayno waa iyadoo carafo awalkeedii la joogo aba carafo maalin bisha loo yaqaano dilxijaa iyadoo awalkeedii aanu maaragtay hadda hadalkan aanu qabanaynaa marka waxaa weeye sanadkii hadda lasoo dhaafay 12 biloodoo bishaan hadda bishii 12aad ay tahay dembigii la galay iyo sanadka soo socdaoo hadda bishaan bisha ka dambaysa ka bilaabanaya dunuubta ah ayaa lagu dhaafaya laakiin hadda xadiiskaas haddee dib loogu nacdo macno badan u baahan yahay waxaa loola jeedaa hay dhaheen culummadu dunuubta midda saqaa'irta ah ilaahay qur-aanka waa ku sheegay saqaa'ir iyo kabaa'ir aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithmi walfawaaxisha ila lamamaw dhah ilaah waxaa kalou dhahay alleh in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima waxa weeye dunuubtu waxay leedahay kabaa'ir iyo saqaa'ir ayay iska leedahay marka culummadu waxay yidhaahdeen waxa lagu dhaafaayo waa dunuubta saqaa'irta ah oo xuquuqda ilaahay haddana ku tacalluqda kabaa'ir markay tahay waxay iska leedahay baab gooniya baabu tawba lagu yaqaanaa shuruud
ayay leedahay. hadday xuquuqda ilaahay ku tacalluqaysane 3 shardiyay leedahay. haddii xuquuqul aadam ay ku jirtaan shardi afaraad ku dirsoomaya. markii shuruudaas la oofiyo ayaa ayadana kabaa'irta la dhaafaya. marka waxaa la yidhi sidaa xadiiskan saas markii la isaga idlaaqay wuxuu keenayaa in maaragtay lagu xambaaro dunuubta saqaa'irta lagu xambaaro. saqaa'irta ayaanba wax sahlan ahayn. marka sanadka soo socda haddii sanadka soo socda la gaaro oo qofku lacalla sii noolaado wixii dunuub hoos saqaa'irahoo ka dhaca ayaa waxaa weeye maalintan yoomu carafo soomaa loogu dhaafa. wixii sanadkan lasoo dhaafay oo hadda sanadki uu gebagebo sii joogo oo bishii 12aad la joogane dembigii la galay oo saqaa'irahay ayaa loogu dhaafaya. marka haddee dembi yaraan male sidiisaba ilaahay yaa noo yareeyo mooyaane fadliga ilaahay iyo xilmiga alle markii la garab dhigo ayuu yar yahay mooye dembi oo dhan maaragtay in lagu dhaafaad u baahan tahay. marka bishaan waxa weeye waa bil khayr badan, waa bil maaragtay bilaha oo khayrka badan oo khawaasta gaarka iskale ayay bishaanu ay ka mid tahay. waxaan marka rajayhaynaa inaanu ka faa'iidaysano oo anuga faa'iidaysano soonkana aan ugaga faa'iidaysano, cibaadada inteeda kalena aan ugaga faa'iidaysano. maalinta yoomu carafaha oo noo soo socotane inay maaragtay hal yoon waxba naga dhibi maaye oo intaasoo khayra aanu ka helayno. inkastoo dadkii maaragtay ramadaankiiba soomi waaye ay dhici karto inuunaba warba uunan u haynin, ousan soomba dan kale haynin. laakiin waxaa weeye dadka muslimiinta allaha soo hanuuniyo. dadku waxay jecel yihiin inay maalmo khayr badan ay helaan, waxyaaba khayr badan ay helaan. waxaas dadka ahlu khayrkaa weeye oo markaas ay ka faa'iidaystaan. marka waxaa la rabaa inaanu bishaan aanu ka faa'iidaysano, ayaamaha kan aynu ka faa'iidaysano oo markaasi 10 dilxija ah inaanu ka faa'iidaysano. waa maalmo sidaasu khayr badan in sha allahu tacaala. waxaana u rajayhaynaa dadka muslimiinta in ilaahay dembi dhaaf alla nagu siiyo, in dadka xujayda ilaahay xajkooda uu ka aqbalo, ee ducadoodana ilaahay subxaanahu watacaala caalamul islaam ilaahay caalamul muslimiin ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta dhibaatada xoogga lahoo maanta haysata ilaahay subxaanahu watacaala inuu gaga faydo oo ilaahay ducadooda uu aqbalo. annagana maaragtay wixii aafaaqda joogana ilaahay ducadooda aqbalo oo qalbiga muslimiintu ay isku mid noqdaan. khayr ayaana rajayhaynaa. intaasaana kusoo koobaynaa barnaamijkan gaaban. hada wabillahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.